dhacdada xalka ka dhacday shabeellada dhexe lagu laayay mataqaana dadka masaakiinta ahaa barmeegeedada awaayeelada iyo caruurtay lagu dilay midda ka dhacday galguduud ka dhacday hadaa la ku yahay waa isku eg yihiin waa laba dhacdo isku eg waaye waxaana mataqaana u aragnaa inay adeegsanayaan cadowgan insha Allah ummadda Soomaaliyeed ku soo duulay inay adeegsanayaan war xumata shilka iyo hadaa la ku qaayib baa laga baxay dadka dhahayaan waxa leenahay haddii generaalkii hadaa la ku yahay uu aaday mataqaana caasimadda aaday ama hawlo u aaday dadka in mataqaana barabagaan waa laga soo baxay war walaalayaal haddaad cadowga aad ku qiyaanaysaan inuu soo galo madax laga gura arabtaana waa ku sharfantiin aad baad u mahadsantiin haddii ay ka tahay mataqaana doqonnimo iyo kuwa caruuraha leenahayo kale iyo wax noocaas oo doqonnimo haddii in ka tahay waxaan leenahay haddii la ku yahay in hore loo socdo maahan cid gadaa u soo laabanaysa male shabaab Saleemaan cid ay u dirsadeen male wax wada hadal ka dhaxayna male wax Saleemaan iyo shabaab ka dhaxaya oo aan dagaal ahayn ma jiraan waana laayeen waana xasuuqeen waana gubeen guryaheennii ceelasheennii ummadeennii meel kasta hadaa la ku nagu dhibaateeyeen annaga iyo shabaab ilaahay baa noo dhaxeeya wax wanaag ay wax naxariiso naga dhaxayna male alxamdulillahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بقى مهد له وحاربنا إن شاء الله تعالى ما أنتينا نكهد الله دور الرماد وأيوه الرئيسة ذاك كل انتي المها برمجيدة أو صغيرة أو كجور متقال الود اللي حالي هذا اللي كورة هي deegaanka hadaa la ku yahay u dhaxeeyo walaalaheena Mareexaan iyo Saleebaan waxaan leenahay arintaas arin aad iyo aad wax u nahay weeye walaalayaal arintu wanaageedii iyo sharafkeedii baa lagu jiray iyo mataqaana hawshii wanaagsaneed oo lagu balansanaa waxay ahayd in hawshaas ay san noqon mid soo laabata sida daraadeed insha Allah ta'ala waxaan leenahay haddii dadkii mataqaana ay dagaalka soo aadeen oo mataqaana hadaa cadowga la iska dhicinayo ilmihii iyo xaasaskii iyo hadaa birmeegeeyadii meesha looga soo tagay in hadaa la korayahay la miro oo halkaas ilmo saqiir ah 10 jir iyo 9 jir ah xal lagu dilay waxa leenahay aad baan uga xunnahay waa wax laga naxo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ka tacsiyeynayna dadka dibka geysan waxaan leenahay waxa weeye wallahi wax la qaadan kara ma ahan dad nuuca u dhaqmana inay maana filaynin inay mataqaana dadka walaalaha ku dhex jiraan dhacdada xalka ka dhacday shabeellada dhexe lagu laayay mataqaana dadka masaakiinta ahaa barmeegeedada awaayeelada iyo caruurtay lagu dilay midda ka dhacday galguduud ka dhacday hadaa la ku yahay waa isku eg yihiin waa laba dhacdo isku eg waaye waxaana mataqaana u aragnaa inay adeegsanayaan cadowgan insha Allah ummadda Soomaaliyeed ku soo duulay inay adeegsanayaan marka waxaan leenahay walaalaheena reer Mareexaan reer Sade wardhac waxaan leenahay walaalayaal arintaas garowshiye ka soo bixiya ka soo hadla dadkaas ilmaha saqiirada meesha ku dhintay hadaa la ku aad baa uga xunnahay waxaan leenahay walaalayaal sida hadalkii hore aan u niri waxaan leenahay walaalayaal nagama kii qabato ina mataqaana gadaal aad mataqaana daal ku nooga yeertaan oo mataqaan wax afoon xun aad sameysaan oo cadowgan caalamiga ah oo lagu soo duulay iska dhicintiisa anoo ku jirna ilmihii iyo caruurtii iyo mataqaana iyo islaamihii hadaa ku la laayo wax naga qabta ma ahan rag way isqabtaan wayna wada hadlaan anoo gorashiyo badan baa ka bixinay meeshii baan tagnay dadkii baan la hadalnay waxaan u sheegnay in aanan laga dabaaqtimin waxyaabaha foolxumada oo ilaahayna uu saraalee ka ah in la joojiyo alxamdulillah rabbil caalamiin lagu guuleysay ayaantaana carradu waxay ahayd khayr bay ahayd arinta xal dhacday aad baan uga xunnahay ma fahamteen dadka aqliga leh oo walaalka ah waxaan leenahay ina ariga ka soo hadashaan waliyo mataqaana ka samafashaan baan rabnaa insha Allah ta'ala annaguna waxaan leenahay dhammaan bulshada
deegaanka degan ee reer xaaj salaam waxaan leenahay walaalayaal dhibkaas iyo xumaantaas la samaynayo waxa weeye dad ka faa'iideysanaya in ay qardaan dagaalka iyo cadowga lala dagaalahayo ee argagixisada ee al-shabaab ee dhibaatada nagu haya ee nabad guuriyey ee ummadeennii iyo sharafkeennii iyo culimmadeennii iyo deegaankeenii baabi'iyey ayaa mataqaanaa maalgelin ku bixinahaya waxaas waan dareemaynaa marka waxaan leenahay adikuna ha aqbalina ha ka jawaabina arrimaha noocaasoo kalea aad baan mataqaanaa uga digaynaa maxaa yeelay meel kasta way joogaan dadka wax magaratada way joogaan haddii marka dhibku sii bato oo aan la isxakamayn wuxuu way dhibaatada way ballaaranaysaa marka sidaas daraaddeed waxaan aad uga baaqaynaa in aan arrintaas laga falcelin ee aan mataqaan waddadeedii wanaagsaneed aan ku wadno insha allahu tacaala aad baan u salaamahayaa waxgaradka iyo walaalaha haddaan la kuuro yahay mareexan ee reer wardhaceed ee mataqaanaa saakana soo wacay ee ka aad uga xumaaday arrintaas insha allahu tacaala marka la soo hadla bulshada dhibku gaaray adinkoo uga tacsiinaya dhibkii dhacay midda labaad insha allahu tacaala warxuma tashiilka iyo haddaan la kuuray qaayib baa laga baxay dadka dhahayana waxaan leenahay haddii generaalkii haddaan la kuuro yahay uu aaday mataqaanaa caasimadda aaday ama hawlo u aaday dadka in mataqaanaa barabagaan waa laga soo baxay war walaalayaal haddaad cadowga aad ku qiyaanaysaanoo inuu soo galo madax laga gura arabtaanna waa ku sharfantihiin aad baad ugu mahadsantihiin haddii aynka tahay mataqaana doqonnimo iyo kuwa carruuraha laynahayo kale iyo wax noocaasoo doqonnimo hadday inka tahana waxaan leenahay haddii alla kuu ron yahay in hore loo socdo maahan cid gadaa u soo laabanaysa male iska ilow doqonow taa iska ilow ha aaminin inta waxaan la hadlaynaa sharaf kalaa la hadlaynaa ma jirto mana dhici doonto wax annaga mataqaanaa haddii alla kuu ron yahay naga suurtoobana ma ahan laakiin dadka xoogaaga lacagta la siinahayo leeyahay barabagaan sameeya oo doqomada ah waan naqaanaa insha allahu tacala waa loo guulaysanaya insha allahu tacaala arrinta maalmaha laga hadlahayay odayaal baa aaday shabaab oo reer xaaj saleebaan ah shabaab saleebaan cid ay u dirsadeen ma leh wax wada hadaloo ka dhexeeyana ma leh wax saleebaan iyo shabaab ka dhexeeya oo aan dagaal ahaynna ma jiraan waana laayeen waana xasuuqeen waa naga gubeen guryaheennii iyo ceelasheennii iyo ummaddeennii meel kastay haddaan ku nagu dhibaateeyeen annaga iyo shabaab ilaahay baa noo dhexeeya wax wanaaga iyo wax naxariisoo naga dhexeeya ma leh dadka la leeyahay waa aadeenna dee awal bay ka mid ahaayeen ayagay midhaa u shaqayn jireen wax annaga mataqaanaa saleebaan tala saleebaan iyo qorshe la isku ogyahay wax lagu ballamayna ma ahan annaguna waxba kama ogin ayaga haddaan la kuuro yahay aadayna haddee ayagaa la weydiinaya waxay u aadeen kolley madaxweynihii federaalka iyo madaxweynaha maamulka galmudug iyo haddee waxa weeye awalaa laga hadlayba oo la yidhi wada hadal shabaab ma jiro haddaan la kuuro yahay lama macaamili karo dhaqaale lama siin karo marka ciddii u bareertay oo hawshaas aaday waxa weeye dee kolley waxaa la xisaabtamahaya maamulada dawligaa la xisaabtamahaya laakiin wax saleebaan la yidhaahdo oo reer xaaja saleebaan ay shabaab wada hadal iyo ergo iyo naxariis ka dhaxaysaah ma jirto haddii aan la kuuro yahay arrintaasina waxa weye waa beeninaynaa beri baana ka nahay dadka mataqaanaa doqomadaho saleebaan ku haya saleebaan annaga haddii aan la kuuro yahay ayna duubteenoo madaxdoodii ah annagaa suldaankoodii ah annaga haddii aan la kuuro yahay waxgaradkoodii ah shabaab iyo saleebaan wax ka dhexeeya oo aan dagaal ahayn ma jiraan annaga iyo shabaabna mana heshiin doonnaba ilaahay idankiisa waana dhaafi doonaan sasabka iyo dadka ay soo dirahay ilmaha laynahayo iyo dadka mataq ay cabsigelinahayaanoo haddaa mataqaanaa haddaalku hoos oo mugdiga waxyaabaha ku jirana annagu shaqo kuma lihin dadkan qur'aan bay akhristeen diin bay akhristeen ilaahay ba baryaan qur'aankaasaa dadka kala saarahaya ducada waa la kala baxaya nin waliba meeshuu ahaa asay aadi doona sidaas daraaddeed waxaan leenahay guul iyo gobonnimo iyo sharaf baa noo ballana wixii haddaan la kuuro yahay wanaag iyo sharaf iyo cizigeenna aan ku ilaalsan karna aan ku ilaalsanayna wax wada hadal aan ka gelayna ma lahan gorgortan ah dowladda soomaaliyeed waxaan leenahay ee federaalka ah waajibaadkiinna waa taqaanaan waa idiin sheegnay horena waa idinkugu sheegnay waan idinku celinaynaa dowladda federaalka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waa madaxweyne sharaf leh oo wanaagsan
oo ummadiisu ay dooratay oo ay jecel yihiin madaxweynaha iyo ummadda yaa la iska horkeenin siyaasiyiintu waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka ee ummadda Soomaaliya ay dooratay ee daacadda ah oo aan isleenahay ma taqaanaa sharaf iyo wanaag buu soo hinaya siyaasiyiin ay madaxweynaha dadka ku dirina oo adinku ma taqaanaa sababaha u noqonina in madaxweynaha iyo shacabka la iska horkeeno madaxweyne meeshaan baxdali waa aad timid waxaad ballan qaaday inaad ma taqaanaa daal ku horeeyay garoon diyaarad u sameynayso waxaad ballan qaaday inay golaha degmada xuquuqda ay helayso waxaad ballan qaaday tuulooyinkii 22 tuulo ahaa ee ceesha baraagaha lagu gubay inaad dib dayactir iyo dib u dejin ummadda u sameynayso dadkii dhowrka boqol ahaa xoolahoodii la dhacay inaad ma taqaanaa daal ku horeeyay ay caawinaad loo sameynayo oo haddii la ku horeeyo la garab istaagayo wixii aad ballan qaaday ee aad noo sheegtay waa lagaaga fadhiyaa waxaana codsigan u horeeya la dagaalanka cadowga nagu soo duulay waxaan aad iyo aad u codsanaynaa ma aqbali karno qaayib iyo baxdo 3 bilood gudahood miinooyinka wadooyinka lagu duugay in la yiraahdo haddii la ku rooyahay waa soo socdaan qoladii miina baarkii wax bixin lahaa waxaan u aragnaa waxyaabaha anaga aad aan u dhibsanayna way sidaas daraadeed waxaan u baahannahay cid kasta shaqada ay leedahay inay qabsato madaxweynuhuna uu kaalinka cadowga uu naga ballan qaaday uu ka soo baxo annaguna sharafkeena iyo dadnimada anaga ilaasanayna dadka doqomada warxamada shirka wada oo meelaha wareegahaya iyo kuwa xaafadaha loo soo diray iyo kuwa luuqyada wareegahayana haba nooma dhibahayaan insha Allah ta'ala waan guuleysanaynaa waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan saraakiisha aqoon-yahanka culimada diinka dhalinyarada inta ma taqaanaa u taagan cadowga iska dhicintiisa waxaan leenahay aad baa u mahadsantiin guuleysta sharaf baan u dambeeyay insha Allah ta'ala shabaab waxa weeye hawshooda waa soo dhamaatay wallahi billahi tallahi macallin markii qaayib ay soo weerareen dhibaatadii ka raacday Allah rahmaanka ayaa ugu gaartay nafaan taliyaashoodii waa ku baabay waa ku xasuuqmeen dhibaata ku dhacday diif bay kala laabteen ma fahanteen marka ina saaga la keeno waa ma soo baxay waxa noo keenin waraa dulmiga la wareegaysaane cidii sharaf iyo wanaag rabtaa in hatta baad furunta doqontuna meelaha hawo wareegto annaga iyo nimankaasina barxadaas aan balana assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh